waa duni aakhir sabaan oo lama daayo warkeeda subaxdii alla keenana warbaa soo ifbaxaya daraamaasa sahan oo ah oo idiin soo bandhigaya isagoo saxar la Drama show adiga kuma dan laha ee dadka ha iska soocin ugu horreyn bal intaan barnaamijku u galin waxaan halkan hambali ugu dirayaa fanaanka Qadarkeeyo iyo marwadiisa Raxmo oo mataana ay u dhashin ilaa iminkana Qadarkeeyo xabsiga ku jira waan ka xumahay inuusan caruurtiisa u dhalatay uusan arag Qadarkeeyo caruurtaada Allah ka dhigay Raxmayba kuwii dalkooga iyo dadkooga iyo diintoodaba anfaca xibinta maxaa cusub ay ahayd maxaa kale cusub waxaa kale cusub in jaaga uu yiri halla ii doorto fanaan qaran baan u yiri hanti qaran ha PK baan booska kala baxay bartaas uu taagan yahay anigu nin hanti qarana ayaan ahay Hargeysa iyo Hardooglay geedweyn harkiisi hoobanta guutal rabbi hoodan ka dhigayo nimeerte baahido isku soo haleeyay inaad ugu habboon tahay hantida ka mudan tahay nacasba halmaamsano ifka lama huraaniyo Hargeysa hiba tahay alla ilaahay fanaan jeego kol hadii aad Hargeysa u haystay intii ka dhimaneed ba waad ku buuxiso fanaan Soomaaliyeed oo Hargeysa aanan u haysan uu yar yahay Soomaalidana qanciskeeda kulleeyto waa dhibaato badan oo cidii isku dayday inay qanciso dib weyn ayay mudanaysaa oo horay bay fanaaniintu ugu daaleen wax sheegoodo lama karayo fanaan la foolaa hadda koor waxa uu yiri qolis wada qaniintaa jidka qaran u dumanay khilaaf lagama waayay waligeed ma qanacday haddaad kala qabweyn tahay oo ku sii daray qabyaaladiina wacan tahay bal qoyskiini soo hadha ha xukumo qubuuraha bal heestaas in yar ila dhageysta hana iga tagnina diyaarintii Qadar Silma ayaan idin soo wadaay jirka qaran tuumani khilaaf lagama waayay jirka qaran tuumani khilaaf lagama waayay waligeed ma qanacda haddaan kala qabweynto qabyaaladina wacanta bal qoyskiini soo hara ha xukumo qubuuraha alla ilaahay waa sidaa hadda dadkii marisay maxad xukumi waa hagaag daawadayaal barnaamijka aan hore u sii guda galnay fanaanada Qadar Silma oo bariyahanba ku sugnay dalka Djibouti daawadayaal been baa lala daba dhigto waxa la yiri markanada loo wado nin baa wado in adeerkeed madax loo suro iyo mar waxay noqotay been kale laga sheego iyo mar waxay noqotay wasiir baa guursaday iminka waxa la keenay wasiirkii maaliyadda ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaaba guursadayba war markaad hurdo waxaad ku riyootay hadda la soo fariisata halkan cid ku dhageysan mayso mid kale beenta waa laga wanaagsan yahay inaad bulshada ku harqiso waxa soo beena ma wanaagsanad oo adigu aad beentaas ba aad maalin kasta soo hindisto marka dambe dadku way ku garanayaan inaad been ku hurgufaysido way isaga kala dareeri doonaan hadii aad maalin kasta been u wadid annaguna beenintiina halkan aan u fadhino daraama show dadka ma dulmay hore baan idinku sheegay wax jiro soo bandhiga fanaanadan waxay saaheen laga dhigi maayo wixii dhacay baan idin soo bandhigaynaa Qadar Silman waa fanaanad Soomaaliyeed waana fanaanad la jecel yahay waana fanaanad afgaaban oo ma hadashay media xitaa social media kama hadashay hadii doonayso in yar qoraala ayay sida ugu soo tixdaa waxay doonaysay ka hadashaa hadda koor arrinkii weynaayo xidigaha geeska markii ay dhacday Qadar Silmo kama aysan hadlin ilaa uu television ka wareysatay laakiin waxay ku soo qortay barteeda Facebook in xidigii geeska isaga hadhay sidaas ayayna maaragtay arrinku ku soo baxay hadda midaan taagan ilaa ay maalintii guursatay Hoodan Cabdiraxmaan Mursal Muuse ilaa ay maanta tan wax ay ka hadashay ma jirto oo waxa la leeyahay mar waxa la ogolayaa Canada kulleeyta meel wanaagsan baad u saadiseen waxa rajaynaynaa in muraadkeedii wax jeceshahay oo Allah u sahlo laakiin nin ayna adeerkeed yihiin abtigeed oo in abtigeed ay yihiin oo u hambaliyeynay maadaama uu asagii aroostay gabar kale oo aroosay ayada maahan waa in abtigeed weeyaan baad gorada u surteen jaceelkeeda cusub waa dad waaweyn oo wariyayaal oo idaacada qaar ka soo shaqeeyeen qaarna waxaan ku iraaday la garanayo caan ah ayaa la soo fariistay oo la soo waji weyn inaysan isyeesaynin markaas waxay leeyihiin waxa guursada Qadar Silmo beenta waxa iga daran beejkeeda waxa ku qoran Qadar Silmo oo hambaliyeynaysa in abtigeed hadda waxaaba soo dhigatay Qadar maadaama ay Brosik iska dhigatay dalka Djibouti Qadar mar walbaba in dadku xiiseynayaan ay dadku ogaadeen oo been baa baalaha looga horgufay wallahi Soomaalidu mar haday ku daba dhigato waxaan ku yiraahdo waa wareer laakiin ba hadalba waa gam kol hadii ay ka aamustay oo aysan soona beenin soona rumaysan waxa jira waxyaabo maaragtay beentu inta cirka isla sii shareerto oo beentu midna waa mid qaada midna waa mid galaasa
galaas ayagu way ka tagta garaafi maraysa dadkiin garaafa loo darabeenta heerka la eg waana laga wanaagsan yahay waxaas oo kale in aad ku dhaqaaqdeen bulshadana daraama show haddii aan nahay bahdeena Soomaalida shidan wixii run oo xaqiiqo ayaa halkan ka helaysan daawadayaal si aad u ogaataan runta jirta af waa hadlayaa oo meel aan ku hadlaan layaa dadkan waan dirdiiranayaa oo been baan ku gurgufaya isma soconayso ma garatay wixii sax ah mar walba dadku ku hiranayaan oo ay dhageysanayaan taasina daawadayaal waxa cadeynteedu u tahay Soomaalida shidan oo barnaamijkan daraama show bila kooban uu jira Soomaalida sanad ay jirtay laakiin barnaamijkan daraama show ay bilowday bila kooban ay jiraan biladaas kooban waxaynu ku soo xareynay dad gaaraya 100,000 oo qof oo subscribe ah ayaa nagu soo hirtay oo na daawado nagu xiran dhageysta waxaanu nahay dad soo gudbiya mar walba runta waxaan nagu jeceshiin mar walba aad nagu dhageysanaysaan oo nagu daawanaysaan waa runta jirta daawadayaal oo aad ula socotaan barnaamijyadeena xisaab badan iyo barnaamijkan hiiga iyo laabta aad ku haysan kolka hawada soo gala ee daraama show iyadoo wixii daraama u jiro si run ah oo xoga aan soo baarno soo shiilnay aan halkan idinkugu soo gudbin doono laakiin darbiga inaad madaxa ku garaacdid oo fallaare gilgilashiilankaaga ma hadhe oo been aad soo wadid waa laga wanaagsan yahay waxaasi mana naga sugaysan haddii aadna daawanayso nagu soo birto subscribe saartay channelkeenana waxaad heli doontaa xog walbo oo sax ah inkastoo anagu dhanka siyaasadda in ka rogsana barnaamijka Soomaalida shidan waa Soomaali faneed fankaan u janjarnaa dhankeeda iyo waxyaabaha kale cusub oo quseeya fanaaniinta annaga difaac oo hadal ah oo soo deynayna waxa runta oo laga sheego qof walba oo been laga sheego halkan waxaan diyaar ugu nahay in aan beenino wixii run ahna aan ka sheegno wixii beenana aan ka soo tabino daawadayaal fanaaniin dhibaato xataa qaar loo geystay oo been laga abuurtay oo waxa jira nala soo xiriiray oo yiraahdo waxaas ma jiraan xitaa ayagan la xiriirnaa oo noo soo gudbiya ka Soomaali shidan ahaan sidee hal dhinac bis iyo wax hunno iyo kutarkuteena aan halkan aan idinkugu iman oo wax sax marka arrinka Qadra Silmo maanta la leeyahay wasiir bay guursatay wiigi koreeyay nin bay guursato Kanada wadayo ahay maxay taa adinku isla beentii kala aad keenaysan iyadoo bil aysan ka soo wareegsan awleedina dana wasiir guursatay guur badana iyadu waxaas waa laga wanaagsan yahay wax aqliga maalinkaaga kaashe bal adigaan daawada oo dhageysanaya soo dhageysa meelaha kale halkan naga dhageysa daawadayaal haddii aad channelkeena barnaamijyada ku jira xabad been ka aragtaan quba oo daadiya weeyaan wixii saxana waad arkaysan laakiin arrinkaas waa arrin been oo fanaanada laga nabtay in barnaamijkan ka sameeynan nagu qasabtay maadaama Qadra Silmo ay tahay fanaanadan jecelna oo heeseedii jecelka iyo fankeedun oo heer sare gaarsiisan yahay bulsho fara badanna ay ku xirantaa si ay ula socdaan fanka taasina halkaas ayaan ku soo beenaynaynaa mid kale waxaa jira daawadayaal dad mar walba Soomaalida shidan qabiil u janjeeriya ama qabiil u saara maanta Soomaaliland hadan soo amaano waxa la leeyahay waxa soo fakanaya kuwa kale oo qabiil kala hada koonfurti amaanta kuwa kale hada bariga amaanta galbeedka shanti Soomaaliya oo intaas oo qabiil ay degaan midba mid ka sheegto oo midka waa laga wanaagsan yahay qarnigee la maraya sanadkeesa la maraya 2020 in qabiilka iyo qabyaalada laga gudbo ayaa wanaagsan oo waxaan ku yiraahdaa wax saxda ah oo nuxur kala aad kala baxdaan heeran qabiil maanta taaganahay inay jiri doonto wayba sii bataba cirku isku sii shareeray mid kale waxa jirta daawale hubsiimo la'aan iyo indha la'aan dad ma aragtay aan waxba iyagu hubsan iska soo qaylinayo anagu inaan qancino taas diyaar u manihin la foolaa horeba hadalkii gam uga siiyo wuxuu yiri waligeed ma qanacday waligeed ma qancaysiin baan leenahay waa sidaas anaguna heestaas baan kugu sii daba qabanaynaa daawadayaal barnaamijkii daraama show ayaan intaas ku soo gabagabeynayna xubinta maxaa cusub ayaa hadda kadib wixii jiro cusub inagoo barnaamijka meel focus ka saareyno ayaan wixii kale cusub oo dheeraada oo xog ah si aad warar kale aad meelaha kale uga baahanina aad uga heli doontaan halkan hadduu Allah awoodo sarri raali ka noqdo haddaad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe saar channelka Soomaaliya sida ula socoto wax walbo been dagaal laga soo shubo si aad runta uga ogaato halkan runta uga soo doonataan barnaamijkan aad u sii dhageysataan barnaamijkiisa kale inta aynu ku kulmi doono waxaanu leenahay intaad kala qabweyn tahay qabyaaladuna wacan tahay bal qoyskiina soo hara ha xukumo qubuuraha
kala qabwaynto abyaaladina waxaanta haddaad kala qabwaynto abyaaladina waxaanta bal qoyskiina soo hara xukuma qabuura haddaad kala qabwaynto abyaaladina waxaanta haddaad kala qabwaynto abyaaladina waxaanta bal qoyskiina soo